بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليركوس دوادا وبرنامج كيني قصوينك nin u dhashay dalka Masar oo ku noolaa magaalada Qaahira ayaa xanuunsaday waxa uu u tagay dhakhtar oo Masri ah kadib waa la baaray waxa uu u sheegay dhakhtarkii in mar dhow xididada wadnaha ee dhiigga qaada xirmayaan waxna looga qaban karin dalka Masar waxa uu u sheegay inuu tago Yurub halkaas oo ka helayo caafimaad xanuunkiisa ninkii wuxuu tagay dhakhtar ku yaala wadanka Jarmalka oo qaabilsan xanuunada ku dhaca wadnaha wuxuuna la kulmay dhakhtarkii ayaa baaray waxa uu u sheegay in wax yar u hadhay in xididada wadnihiisu ay wada xidhmaan balse lagu sameyn karo qaliin taasna ay tahay boqolkiiba 50 macnaha uu yahay ama waa uu dhiman ama waa uu badbaadi ninkii aad buu u naxay wuxuuna codsaday in uu ku laabto 2 cisho dalkiisa Masar si uu u soo macsalaameeyo ehelkii iyo qaraabadii qaliinka ka hor maadaama uu dhiman karo waana uu ka ogolaaday dhakhtarkii waxa uu u sheegay dhakhtarkii inuu soo dhaqsado ninkii wuxuu ku laabtay Masar isagoo xaafadiisii ku sii socda ayuu arkay gabar meel hilibka lagu iibiyo agteeda qashinka lafa ka guranaysa ninkii intuu istaagay ayuu su'aalay gabadhii sababta ay lafaha u guranayso waxa ayna ugu jawaabtay ciyaalkayga ayaan u gurayaa oo 2 sano hilib ma aysan cunin waxay sii raacisay lafahan baan u kariyaa oo maraq ayaan uga bixiyaa ninkii intuu naxay ayuu yiri inakeen waxa uuna u geeyay ninkii hilibka iibinayay oo ku dhawaa goobta qashinka waxa uuna ku yiri gabadhan toddobaad kasta way ku imaanaysaa wixii ay hilib ay qaadan karto si ana bixinaya lacagta ayadana waa uu sheegay intay faraxday ayay u duceysay duco qalbiga ka soo go'day oo tiri allo ku caafi ku sii wax walbo aad jeceshahay inta aad nooshahay ayay tiri gabadhii ninkii 2 cisho kadib markii la gaaray ayuu ku laabtay wadanka Jarmalka dhakhtarkii ayaa baaray inta uusan qaliin ku sameyn ka hor si loo ogaado natiijada qaliinkiisa iyo meelaha loogu sameyn lahaa qaliinka jawaabtii oo natiijada dhakhtarkii waxa uu yiri dhakhtarkee ku soo daaweeyay waad soo daaweysay ninkii wuxuu ugu jawaabay maya maan isdaaweyn meel kalena ma aadin runtii dhakhtarkii waa uu qaadan waayay waxayna ku noqotay mucjiso wuxuuna dhakhtarkii ku yiri waxa aad qaadatay daawo taasoo furfurtay xididadii oo dhan iminkana wadnahaagii iyo xididadii si fiican bay u shaqeynayaan ayaa ku siiyay daawadan ayuu sii raaciyay hadalkiisii ninkii wuxuu yiri anaa garanaya الله سبحانه وتعالى أي داويي مركي عامد أمديسة كمدة ونحرستي وانا إن حرست الله سبحانه وتعالى نكي وحو هذا الكيس كسو قبقبي الحمد لله الله أيام هذا اسكاله كاس أوصون وليا لفها مركي برقران ودقوان ولا ليال رسولك عليه الصلاة والسلام وحاولي لحديث كسوغا رسولك داووا مرضاكم بالصدقة ومعنى هذا أي تهي صدقة كداوية وإذن كحنوسا مركولا يا معان أنا كد ذالنا صدقة أنا كد ذالنا صدقة وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته